بسم الله الرحمن الرحيم لما أرضي صوماليات كسود بعد كالنك وحبرشة إبسوليشن إن شاء الله قيبتي الوقت مادة التكنولوجيا أيام تسلح لندونا وحق بلاوينا قيبت سدحات اسكو آدي سيدا أي اسكوليهين حرف كباء يو تا استعمال لمبركة صدني يكو نوعية tamarta waxaa loo qaybiyaa ardayay laba nooc oo kala ah maaxata iyo gurta. meeshaas waxaa ku qoraysaa noocyada tamarta ardayay waxaa loo qaybiyaa tamarta maaxata iyo tamarta gurta. meeshaas waxaa ku qoraysaa 32 ku qoraysaa. su-aasha labaad waxaa waaye seelasha emiswad waxaa loo yaqaan waxaa arday dokumentiyo ayaa loo yaqaanaa. meeshaas waxaa ku qoraysaa number adeegsanaysa 32 ku qor. 33 si aan u jaro ama u raro qoraal waxaa adeegsanayaa kat adeegsanaya. meeshaas waxaa ku qoraysaa 33 ku qor. daabacaad print ayaa ku aadan print. meeshaas waxaa ku qoraysaa 34 ku qoraysaa. 35 si aan u koobiyo qoraalka waxaan adeegsanayaa koobi ayaa adeegsanaysaa. koobi ayaa la adeegsadaa. meeshaas koobi ku qorantaa waxaa ku qoraysaa horteed numberka 35 aad ku qoraysaa. 36 macluumaadku waa meesha ugu horeyso xog la shaandheeyay. meesha waxaa ku qoraysaa 36 aad ku qoraysaa. hage ardayda waxaa ku aadan muus aa ku aadan hage. meesha waxaa ku qoraysaa 37. emiswad waxaa lagu diyaari karaa waxaa ku aadan arday dokumentiyo aad u bilicsan ayaa lagu diyaari karaa. 39 si aan u doorto qoraal waxa aan adeegsanayaa select. meesha ku qoran tahay meeshaan waxaa ku qoraysaa meesha ugu dambeysa waxaa ku qoraysaa 39 aad qoray. si aan u dhajiyo qoraal waxa aan adeegsanayaa waxaa la adeegsadaa basti la adeegsadaa macnaha. meesha basti ay ku qoran tahay ayaa waxaa ku qoraysaa numberka 40aad aad ku qoraysaa. ardayda qaybta saddex ka gudubno. qaybta xigta waxaa waaye qaybtii afaraad weydiimo toos ah. 41 waxaa waaye samee afgarasho aan si fudud loo saadaalin karin. 5 dhibcood ayaa saaran. waxaa sameynaysaa baaswiir aan si fudud loo saadaalin karin. marka waxaa adeegsanaysaa calaamado iyo xarfo iyo tirooyin isku daray. marka baaswiirkaaga wuxuu noqonayaa mid aan aad loo saadaalin karin. tusaale ahaan 4 gees haddaad dhahdid oo kale cali oo kale kadib slash adeegsatid iyo dhibic iyo xarfo iyo waxaa isku daraa iyo tirooyin iyo calaamado isku daraysaa. su-aasha 42 u kala saar ilaha tamarta ee sanduuqa hoose ku jira tamarta maaxata iyo tamarta gurta. waxaa ku qoran qoraxda, nuclearka, shidaalka, kiimikada, dabaysha, kulka, danabka, biyaha. waxaa laga rabaa inaad u kala saartid tamarta maaxata oo ah midda dib loo cusboonaysiin karo iyo tamarta gurta oo ah midda aan dib loo cusboonaysiin karin. tamarta maaxata oo ah tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxaa kamid a
biyaha ayaa kamid ah, waxaa kaloo kamid ah dabaysha kamid ah, sidoo kale waxaa kamid ah qoraxda kamid ah, waxaa kaloo kamid ah kulka ayaa kamid ah ama danabka. tamarta gurta oo aan dib loo cusboonaysiin karin waxaa kamid ah nuclear-ka kamid ah, shidaalka kamid ah iyo kiimikada, waxyaabaha aan dib loo cusboonaysiin karin. su-aasha kale oo 43aad, faahfaahin kooban ka bixi barnaamijka WORD 2010. arday barnaamijka WORD 2010 faahfaahintiisa haddii aan soo koobno waxay noqonaysaa barnaamijka WORD 2010 waa barnaamij loo isticmaalo qoraalka in lagu diyaariyo warqado aada u bilicsan sida CV-yada iyo invitationska iyo shahaadooyinka iyo waxyaabahaasna lagu diyaarin karaa, iyo buugaagta in lagu qoro oo kale, waxyaabahaasa loo isticmaalaa. su-aasha 44aad, magacaabo 3 kamid ah carabada uu ka kooban yahay ribbonka. waxaa saaran 3 dhibcood saaran. carabiyada oo ribbonka uu ka kooban yahay ardayda waxaa kamid ah home kamid ah, insert ayaa kamid ah, waxaa kaloo kamid ah page layout kamid ah. su-aasha 45aad, ka faalow astaamaha lagu garto in uu kombiyuutarka u galay virus. astaamaha lagu garto in uu kombiyuutarka virus galo waxaa kamid ah wuu cuslaanayaa, wuu dadamayaa, iyo waxyaabahaasa kamid ah. macnaha culays badanaa ku arkaysaa. sidoo kalena adoo oo calashan barnaamijku diyaarinayo iska damaa, haddii oo documenti ay geliso documentiga wuu ka wasaqeynaa, wuu cunaa aslan documentiga. astaamahaasa lagu gartaa kombiyuutarka inuu virus ku jiro. arday waxaa rajeynaya inaad fahanteen. وبالله توفيق. janaalkana subscribe ala saar.